السلام عليكم. شن حنون نفسي oo dadka ku dhaca lagana yaabo mid ka mid inuu adiga laftaada ku hayo. Ka koobaad waxa weeye kalanimeyniya. Waana inaad iska jeclaato inaad gogoshaada aanad ka kicin oo aad iska jiifto sabab la'aan. Ka labaadna waxa weeye jaaska. Jaaska waa isla sheekaysi malaawaala oo qofku sawiranayo dhacdooyin iyo dad wahmiya. Ka saddexaad waxa weeyaan philibophobia. Philibophobia waxa weeyaan xiriir inaad samayso ama aad guursato waad ka baqataa. Saa'id baad uga baqataa waliba. Ka afraadna waxa weeyaan necrophilia oo micnaheedu yahay inaad meelaha mugdiga iyo habeenkii sabab la'aan aad isaga jeclaato. Haddii aynu u nimaadno ka shanaad oo ah ka ugu dambeeya waxa weeye excellences oo ah inaanay xiise kugu haynin inaad ka hadasho wax adiga ku qoseeya ama inaad ka hadasho arrin taagan adigoo iska aaminsan inaanay gabi ahaanba jirin cid ku fahmaysa. haddaba la wadaag ka ku haya adiga. nabadgelyo.